السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta barnaamijkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko xiiso xambaarsan taasi oo ku dhacday dhakhtar caan ahaa aynu wada akhrino sheekada waxayna odhanaysaa sheekadu waxaa jiray dhakhtar caan ahaa kaasi oo degdegay dhankada ay diyaaraduhu ka xigaan micnaha garoonka diyaaradaha si uga qayb gala shirka caalamiga ah ee sayniska kaasi oo lagu sharfi doono guulaha gaarka ah ee uu ka gaadhay dunida daawooyinka waqtigu waa waqti uu cirku madow yahay micnaha uu roob soo di'i doono diyaaradii ayaa si nabad ah ilaahay iidankii uga kacday garoonka laakiin si lama filaan ah hal saac kadib diyaaradda waxaa la shaaciyey inuu qalqal soo galay amba ay dhaawac soo gaadhay taasi oo sababtay in lagu dejiyo garoonka garoomada ugu dhow amba garoonka ay ugu dhow yihiinba dhakhtarkii saarnaa diyaaradda ayaa waxa uu kacay dhankaas iyo mas-uuliyiintii waxaanu u sheegay inuu yahay dhakhtar caan ah daqiiqad kasta qiimo ayay ii leedahay waxaanad rabtaan inaan joogo 16 saacadood oo aan diyaaradda sugo shaqaalihii ayaa ugu jawaabay dhakhtar haddaad degdeg tahay waxaad kiraysan kartaa baabuur waadna qaadan kartaa markaa safarkaagu waxa uu qaadanayaa 3 saac oo keliya dhakhtarkii ayaa si cagajiid ah waxa uu qaatay gaadhigii waanu kaxaystay si lama filaan ah waxa isbedelay jawigii roobkiina aad buu sii xoogaystay waanay adkaateen lagu dhex socdo roobka kadib 2 saacadood oo safarka ku jiray waxa uu xaqiijistay inuu ka lumay wadada oo uu dareemay gaajo iyo daal aad u daran kadib waxa uu arkay guri hortiisa ahaaday waanu ka soo degay gaadhigii isagoo u dhaqaaqay dhanka guriga albaabkiina uu ku garaacay waxaanu maqlay cod haweenay duq ah oo leh fadlan soo gal albaabku wuu furan yahay cid kastoo aad tahayba waxayna mar labaad ku tidhi waad nasanaysaa waxaadna isku shubi doontaa koob shaaha oo kulul waxaana miiska saaran cunto dhammaanteed ilaa aad ka dheregto ood ka kabato daalka amba ay dib kuugu soo noqoto awooddaadii dhakhtarkii ayaa waxa uu mahad celiyay islaantii amba haweenaydii islaantii duqda ahayd waxay gashay salaad dhakhtarkiina wuxuu si lama filaan u arkay wiil amba cunug yar oo meel yaala oo aan lahayn wax dhaqdhaqaaq ah sariirta agteedana yaala islaantii duqda ahayd ay u gacan hadinayso salaad kasta inta u dhaxaysa markaa dhakhtarkii ayaa hadlay oo waxa uu yidhi hooyo ilaah baan ku dhaartay waxaan ka xishooday deeqsinimadaada iyo sharafnimadaada akhlaaqda leh ilaahayna wuu ajiibay dhammaan salaadahaaga dhakhtarkii ayaa waxa uu ku yidhi haweenaydii ilmaha maxaad dhakhtar u geyn weyday daaweeya islaantii ayaa waxay ugu jawaabtay hooyo cunigan aad arkayso waa waalid la'aan waana agoon cid ciirsiyaa u leeyahayna ma jirto aniguna ma awoodaan ugu geeya dhakhtar ama kharashaadka ku baxaya daawooyinkiisa dhakhtarkii ayaa ilmo labada dhafoorba qabsaday waxaanuu ku yidhi hooyo baryadaada ilaah baan ku dhaartay diyaaradihii bay khalkhal gelisay oo waxay ku dhufatay oonkood waxaana samada ka daayay roob aan la qiyaasi karin si ay ugu hogaamiso wadadan uu ilaahay la rabay wasalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qisadiina intaa way ku egtahay fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar siina sheer garay